waxa idin taallay inaanu istaagno inaan waxa cusub ay nagu soo kordhay iska qabanno dalkani dal xoog la isku muquuniyo ma noqonayo aad baan soo uga xumaa hadday maxamed abiib iyo xildhibaan mustafa iyo barkhad iyo oo raggii cusbaaya dee jabhadaha aan ka qayb gelin iyo raggii siyaad baraan la dagaalna hadduu waxaas ka iman lahaa waxa la odhan lahaa waa qaar cusub oo baashoo cusubtaa la odhan lahaa raggii dagaalamay xorriyad baan u dagaalanay ummaddu habeen iyo maalin ku lahaa markay dadkii iyagii laynayaan maxaad u dagaalantay taariikhdaad ummadda u sheegaysa ma been behed waxaad ka shaqaynaysaa beeniniyo waxaad ummadda u sheegaysa dee madaxweyne waxaad ummadda aad shalay qabatay ee daraad qabateed xalay ku anjabaysay ayaa madaxweyne ummadda u sheegaya wixii horeed sheegaysay oo burinaya maanta se fursad baad haysataa dib ugaga noqoto fursad baad haysataa rag baa xiniyaha laga saaray tallaabo lagama qaadin ilaan qofku eeg way ku yaraydba iminka sa u socoto dee way ku yaraydba dee annagu waxaan islaa kuwiiba yaa dembi lagu xukumi doonaayo maxkamaddaa la geyn doonaa maxkamadda ayaa la geyn doonaa ciidamada annagay naga yimaadeen idinkeydii ka yimaadeen shacabkay ka yimaadeen waa kuwaanu miisaaniyaddooda halkan ka kordhinayni weeyaan miisaaniyaddaa loo hagaajiyaan lahayn wey laakiin dadku ma wada xumaadaana shakhsiyaad madax xumaatay baa ciidanka xumaysa oo shacabka xumaysa waxaan leynay ka daaya ninna ma dhaqdo ninna dhisi maysa taasi habdhaqan baynu lahayn dawladda maanta jirtaa habdhaqankaynu lahaa jirnay way ka gudubtay somalilan marka laysku yaacay wax laysku afgaran waayo meel baynu iskula noqon jirnay odayaal baa arrinkii galay madaxweynuhu kalsoonidii wuu diiday labada oday ee midna aqalkaygan odayga ka yahay midna aqalkan odayga ka yahay ayaa arrinkiyaa loo daayleen labadiina maalintii dambe madaxweynuhu ka baxayay dee madaxweyne ayaa lagu soo kaxaystaayo yaa idin dhexdhexaadinayo yaa idin kala qabanaya yaad kalsooni siinaysaa oo arrinkaa gelaya yaad kalsooni siinaysaa kibaa bilaabatay soo maha haddaad sheekh tahay iyo haddaad weriye tahay iyo haddaad qof shacbo tahay dhammaantiin waxa idin taallay inaanu istaagno inaan waxa cusub ay nagu soo kordhay iska qabanno dalkani dal xoog la isku muquuniyo ma noqonayo aad baan soo uga xumaa hadday maxamed abiib iyo xildhibaan mustafa iyo barkhad iyo oo raggii cusbaaya dee jabhadaha aan ka qayb gelin iyo raggii siyaad baraan la dagaalna hadduu waxaas ka iman lahaa waxa la odhan lahaa waa qaar cusub oo baashoo cusubtaa la odhan lahaa raggii dagaalamay xorriyad baan u dagaalanay ummaddu habeen iyo maalin ku lahaa markay dadkii iyagii laynayaan maxaad u dagaalantay taariikhdaad ummadda u sheegaysa ma been behed waxaad ka shaqaynaysaa beeniniyo waxaad ummadda u sheegaysa dee madaxweyne waxaad ummadda aad shalay qabatay ee daraad qabateed xalay ku anjabaysay ayaa madaxweyne ummadda u sheegaya wixii horeed sheegaysay oo burinaya maanta se fursad baad haysataa dib ugaga noqoto fursad baad haysataa rag baa xiniyaha laga saaray tallaabo lagama qaadin ilaan qofku eeg way ku yaraydba iminka sa u socoto dee way ku yaraydba dee annagu waxaan islaa kuwiiba yaa dembi lagu xukumi doonaayo maxkamaddaa la geyn doonaa maxkamadda ayaa la geyn doonaa ciidamada annagay naga yimaadeen idinkeydii ka yimaadeen shacabkay ka yimaadeen waa kuwaanu miisaaniyaddooda halkan ka kordhinayni weeyaan miisaaniyaddaa loo hagaajiyaan lahayn wey laakiin dadku ma wada xumaadaana shakhsiyaad madax xumaatay baa ciidanka xumaysa oo shacabka xumaysa waxaan leynay ka daaya ninna ma dhaqdo